guud ahaanba hawb samiir socodka howlaha shaqo ee bulshada ku dhaqan guud ahaan Somaliland ayaa yaraaday cimilo qabow ah oo rooban iyo 48 saacadood in ka badan cadeed la'aan bulshada kala duwan ee reer Somaliland ee ku dhaqan xeebaha beeraleyda xoolo dhaqatada iyo dhulka buuraleyda ah ayaa dhamaantoodba wadaaga jawi iyo cimilo isku mid ah taas oo meesha ka saartay kala duwanaanshihii kuleylka xeebaha iyo dhulka qabowga ah caasimadda Hargeysa oo ay ku dhaqan yihiin bulshada ugu badan ee reer Somaliland kala badh ku nool ayaa ay aad u yarayd isu socodka dadka balse gaadiidka ayaa noqday waxa kaliya ee socda wadooyinka iyo magaalada dhexdeeda ardayda dugsiyada ayaa intooda badan aanay u suurtagelin tegida goobihii waxbarasho cimiladan oo u eg cimilada dalalka Yurub qaarkood ayaa bulshada qofba uu si u dareemay falaadhaha iyo iftiinka qorraxda ayaa ah mid ay aad u tabeen bulshada ku dhaqan Somaliland guud ahaan oo maalmihii u dambeeyay dareemayay kulayl aad u fara badan cimilada noocan oo kale ah ayaa Somaliland soo martay waqtiyo hore sida la xasuusto waqtiyadii lixdamaadkii oo in badan oo da'yarta maanta ahi aanay warba ka haynin guud ahaanba cimilada ay dareemayaan shacabka ku dhaqan Somaliland oo ilaa hadda aanay wax saameyn ama dhibaha ku keenin ayaa sidoo kale waxa ay la wadaagaan caalamka daafiisa kala duwan sida dalka Philippines oo duufaano hor leh ay ku dhufteen khasaaro badan ay u geysteen waxayna la mid ah oo la wadaaga qabowgaasi iyo roobabkaasi kala duwan dalalka kulaala badweynta India oo ay soo gaadheen saameynta duufaanadaasi iyo roobabkaasi waa Jaafar Axmed Bada telefishinka qaranka Somaliland Hargeysa